بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacay waa Kaafiye Saacid Cismaan. waxaan ka mid ahay dhalinyarada reer Kismaayo. waxaanan qoray buugan la yiraahdo Garnaqsi. buugan waxaan oga hadlayay caqabadaha haysta dumarka Soomaaliyeed kuwaasoo saameeya waqtiyo badan. waqtiga la yiraahdo waa gabadh oo gurigooda joogta iyo waqtiga la yiraahdo waa hooyo oo reer bay leedahay iyo waqtiga ayadoo hooyo ah ee haddana gorobta ay kala tageen wiilka ay kala joogeen. marka saddexdaas qaybood oo kala qaada buugan wuxuu ka kala hadlayaa qayb walba ay caqabada haysato sida gabadha camal marka caqabada haysato baadiyaha noqoto magaalada ha noqoto labadaba. marka caqabadaha haysto waxaa loo kala saaray dhowr qaybood. qayb waa dhaqanka inay ku marto ayadoo dadka Soomaalida ay dhaqan ahaan u raacayaan iyo inay qayb magaalada marka ay joogtaba ay u noqoto. tusaale markaan soo qaatay magaalada marka ay joogto caqabada ugu weyn waxa weeye in dhinaca waxbarashada loo diido, in hooyadii ama aabihii ay gabadha waxay ay baran lahayd u arkaan nooc kale sawir kale oo qaldan in ay ka qaataan. in haddii wiilka ay wax u dirsato iskuulka ay dhahdo gabadhii surwaalkii ama shaatiga wiilka dhaq jikadana noogu jir, dadna waxay noqonay qofkii inuu iscuqdadeeyo عقدة نفسنا وكل عقبدي بعدها عمل مركز جوني حكسين وحلا لها جفتو وقبض ولا شيء مركز اللي ماتو منك لصيه وعقبت وحين عقبت كنت هالنفس هذه نولاد مستقبل كي رجينيسي iyo in bulshada ay kala kulanto caqabada badan mid waa mid gurigooda kala kulmeysay midna waa mid bulshada ay kala kulmeysay. bulshada camal waxa laga yaabaa inay kala kulanto faquuq sida gabadha hadii la kufsaday camal kufsi haduu dhacay gabadha inta badan way faquuq meesha deegaanka waxay ku noqonaysaa inay ka takooranto inay isku aragto guur la'aan camal inay dhacdo. marka shakhsiyadeediba way dhacaysaa oo noloshii way ka dhacaysaa waxay kaloo ka dhacaysaa in hami ay yeelato guur way ka dhacaysaa. hooyada markay reer yeelato camal waxa dhacay caqabado badan ninka ayadoo ay wada joogaan buu haddana biilaneen ilmihiisa. marka hooyada way ku qasban tahay in dhaqdhaqaaq kale ay muujiso. waxaad arkaysaa hooyada ayadoo 9 bilood ah ama qaad meel ku gadaysa ama dukaame iyo wax leh yaad arkaysaa oo ayadana ay rafaadayso asna subaxii 5 saac 6 saac intuu soo tooso qaad soo qaato guriga qaad u dhex fadhiisto. marka caqabada hooyada aad u tiro badan tahay ma dhahayo caqabada ragga un baa iska leh dumarku way la imaan karaan caqabadii laakiin dhibka jira wuxuu yahay ragga Soomaaliyeed ay suubiyaan 80% ama 75 in ilmahoodii ay sanbeelin. buugan marka qasooyinka ku jiro waxa kamid ah marka hooyadii gabadhii ay caqabad ku dhacdo ama waqtigii dagaaladii sokeeyay uu dalka ka dhacay camal waxa jirtay caqabad dumarka gooni u ahayd oo ku dhacday sida kufsiga camal oo haday aan sheegay kufsigu gabadha marka ayadoo gabar ah la kufsado waxyaalo badan ay u dhimaysaa. halka marka waxa kaaga cad in caqabado badan ay haystaan saasoo ay tahay dalka maanta uu burbursan yahay burburkiisana dadka badbaadiyay waa dumarka Soomaaliyeed. aabahay markuu dhinto waxa ilmahooda dhaxda u xirto waa hooyooyinka Soomaaliyeed. ilaahay ha u naxariisto qariyo adduunba. waxaan kala codsan lahaa waqtiga gabadhu ay gabarta gurigooda joogto in lagu dadaalo inay wax barato. geerida dadka waa u wada simeeyeen geeridu dadku way u wada simeeyeen waxa laga yaabaa in aadna mudato waalidkii ahayd kala oo muto ninkeedii hadii ilmuhu uu ka dhinta camal in ilmihii awood ay u yeelato in hadii dugsiga markay ka imaadaan ee quraanka taqaano oo leedahay wareeyada quraanka ma akhrisan hadii leedahay aqoon kale tan awood waxay u leedahayba in si kale ay u soo saarto ilmaheeda oo ilmo maskax badan aqoon leh maskaxiyan iyo caqliyan labadaba u dhameystiran. gunaanadkii buugan waxaan mahad celinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala runtii
awood ii siiyey in aan soo saaro inaan ka hadlo dumarka Soomaaliyeed dhib ku haysto mar walbeeto kumana nacaasin waxaana ka rajaynaa intaan in ka badan inaan soo saari doono waxaan mahad celinayaa hooyaday iyo aabahay runtii igu soo dhiirigeliyay marka horeba inaan awood u yeesho inaan wax barto waxbarashadeedana maanta heerkan soo gaarsiiyay waxaan kale u mahad celinayaa runtii naadiga badbaado oo ahaa runtii dadkii marka aan buugga noocaasaan rabaa inaan qoro awood u yeeshay una soo istaagay in meel kastoo aan wax uga baahdo email mariyaan waxaan kaloo u mahad celinayaa madasha Maankulan oo runtii soo saarida buuggan ayadana ka qayb qaadatay waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan bulshada reer Kismaayo oo runtii ayaga laftigooda aan maanta wax ku ahay heerka aan maanta saan leeyahay aan joogana ay soo gaarsiiyeen dhammaantood waxaan leeyahay waad mahadsantihiin